su-aashani maanta waxay ka imaatay gabar Soomaaliyeed ama waxaan dhihi karnaa maamo Soomaaliyeed. su-aasheeda waxaa waaye marka waxay tiri dhowr iyo 30 sano kadib ninkayga waa nacay, mana rabo inaan la sii joogo oo waxaan rabaa in lii furo. hadduu diidana waxaan rabaa inaan maxkamad tago oo aan fasakh qaato. maxaad igula talin lahayd? maxaa ugula talin lahaydeen gabadhaas ama maamadaas? خير الله يديسي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها إلى أن ترسجوا على مولدون كتك جوتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة عصب وحلقة ينكي إلى التالية برنامج هنا أو أسبوع لها ما الأول بإن شاء الله تعالى. هل سؤالا سوق قاضنا وحربنا سؤال شاسنا كجوابنا تلدينا أسوق قرطان أنا تلدين أسوق قرنا ولا لها كودة فائدي سنة أن كودة فائدي سنة دماتنا. سؤاشان وسؤال عاد ودير هواية وفهم واي واللي وسوا علي عدا اللي وسوا دوبي طبعا ودقيستي وكنحي وإتابتي ووعي قفكي وسلامي marka waxaan ku dhahay walaalay say wax u jiraan ii sheeg. waxay ugu tiri marka hore hooyo igu yeeray tiri waxaan rabaa mowduucayga inaan kuu sheego. daas waayo walaal ama hooyo u dhahay waayahayaan ku dhahay saa jeceshihid mowduuca ii sheeg. marka waxay tiri aniga waxaan jiraa almost 60 aan ku dhawaahay 40 sano ku dhawaad dhowr iyo 30 sano ayaan xaajigan wada joognaa. waxay tiri waa iga soo dhammaatay, waxaan rabaa inuu ifuro, inuu ku furo. wax hal marka dhib ma ii sheegaysid furitaan leh maa la soo boodi fatwo ahaan inuu ku furo. hadduu ku furi waayeyne inaad maxkamad tagtid oo fasakh soo qaadatid. go-aan miya oo fatwo ma i weydiinaysaa mise waxaa rabtaa wax inaan kuu sheego? waxay tiri hooyo kulley aniga ma u malaynaya xal kale inuu jiro, laakiin dhibaatadaan raba inaan kuu sheego. waxaana jeclaan lahaa ayay tiri inaa walaalaha la wadaagtid saa lala hadlo nimanka Soomaalida, gabdhaha Soomaalida dhibka ku haya. maamada kelimadaas isticmaash khayr Allah siiyo. waayahayaan ku dhiishay. waxay tiri ninkan anigoo 20 sano jiro ayaan isguursanay. taas waan ku dhigay 60 aan ku dhawahay tiri. caruur badan oo Ilaahna kala siiyey waa soo baxnay, qurbahan imaanay, waa wada joognay maalmihii koobaad sanadii koobaad ugu fiicnaa. kadib waxay tiri waxaa dhacday xoogoo lacag aan aruursanay. ninka wuxuu igu yiri tiri waa baxaynaa, waa baxaa oo waxaan aadaa wada meelaan tagaa, waxaan noo soo sameynaa business aan noo soo sameynaa. okay waa ku farxay tiri. ilmeera noo joogay waxaas dhahay tiri ilmahan xagga markuu business noo soo sameeyo ilmaha xagga xoogo inuu noogu soo karaana ugu talagalnay. okay kadib maxaa dhacay? waxay tiri ninka xagga markuu joogay xoogo maalmihii koowaad wiil soo xiriiri jiray. kadib marka waxay tiri xiriirkii ayaa yaraaday. hal mar marka qof oo aan ka filanaynin waxay tiri khayr Allah ma siiye. waxay tiri gabar oo khayr laay oo ilaahay khayr ma siiye tiri. gabadhaas maalintaas iga nixisay, cuqdada iga shay maalintaas gabadhaas sabab waxay tiri waxay ii soo dirtay tiri sawir ninkii aan u dirsaday wadanka business noo soo sameeyo iyo gabar kale isla taagan yihiin oo lii leeyahay hoosna igu soo qortay xaajiyo meeshaana fadhisaa ninkaagane xaggu ku raaxaysan weeyahay. waxay tiri jikadan ku jiri waa naxay telefoonkii meela. waxay tiri wallahi dhiiga ay degay tiri meel allaale meelaan joogaan garan waaye. waxay tiri sheekh haddaan kuu sheego wallahi maalintaas cuntadii dabkii ku gubatay, wax allaale waxaan sameeyaan garan waaye. ilmahayga imaadeen iskuulka imaadeen soo cunto karsaneen anoo si kale isbitaala lii geeyey. ilmihii waa yaabeen maxaa kugu dhacay, maxaa kugu dhacay? waxbo isbitaala lii geeyey. waa soo baxay alxamdulilah. waxay tiri xoogo tartiib la soo qabsaday. inkaar qabtadii telefoonka sawirkii soo dirtay kuma joogsan, waa isoo wacdiyaday tiri tata waa jiiftaa waxaan kuu soo qoray ma aragtay iyo sawirkan kuu soo diray. markaasaan waxaan ku isbitaalaan ku jiraa khayr Allah ku siiyo faraha iga qaad.
markaasi waxay ugu tiri saas waa nimanka soomaalida lacag ay qaataan naag kale kusoo guursana anagana meeshaan inaga wada tagaan. Okay, dayib maxaa dhacay kadib? maxaa dhacay waxay joogtay kadib waxay tiri ninkii waa wacay maalmo kadib, alxamdulillah waa wacay, waa weydiiyey, wuu inkiray, sawirkii aan u diray. markaan u diray kadib telefoonku blog iga saartay. waxaan markuu iga saartay anaa haddana gadaal isugu noqday, waxaan dhahay tiri Hibloy, arrintuu ninka wuu sameeyey, khaladkan wuu sameeyey, maxaa xal ah? telefoonkii caruurtiisa mid ka mid ahaan ka wacay oo iga qabtay, si wanaagsan oo la hadlay. markaasuu yiri maxaasaan kuu diiday marka hore inaasan ilahays maxaa kuu diiday? waayahan dhagtar goorma soo noqonaysaa? dhowr sano kadib uu soo noqday, arrintii aan la ka weydiiyey. marka arrintii imuuse maxayaan dhihi maynay, waxaan go'aansaday markaa intaan faraha ka qaado. businesska ku wax noo marwayay, business ma jiro. meeshuu yimid xooguhu nala joogo wuu sii baxay. sheekh waxay tiri si waqtigaas loo gaaray cay, aflagaado, xaq la'aan. tii uu guursaday waxay tiri way kala tageen. aniga waxay tiri weli dimadiisaan ku jiraa, xaaskiisaan ahay, laakiin intaa hadda ogahayay tiri aan ka warhaayo waxaa iga dambeysay 5 gabar kale iga dambeysay tiri. 5 gabar kale iga dambeysay. hadda inuu reer leeyin kalena kama warhaayay. ninkaas marka caruurtu way isu weynaadeen. waxaan go'aansaday caruurteedii inaan korsado. caruurtii waa korsaday, gabdhay igu badnaayeen. alxamdulillah tiri tii u dambeysay laasiiraa liga guursaday. xoraan ahay, caruurteedaan u sabraayay, xoraan ahay. marka ninkaas nolol kuma haystee maxaad inaa iska furaan rabaay ama iska fasakho? maxay kula tahay? marka su-aashaas jawaabay u baahan tahay. maamadaas marka hadal dheeraana dhex maray oo ka mid ah xalka aan siiyey qaar ka mid ah. laakiin intaan xalka sheegin waxaan rabaa xalaqadan xalkeeda ina adiga kuu daayo, because maamada xalkan siiyey alxamdulillah waa u shaqeeyey. si fiican uma shaqeynin laakiin waa u shaqeeyey xoogo. sidaa darteed waxaan rabaa xalka inaan hadda xoogo boosgeeyo oon sheegin. waxaan rabaa marka adiga, maadaama dad badan daawanayiin insha allah tacaala, adiga maxaad kula talin lahayd gabadhaas soomaalida ama maamadaas soomaalida? maxaad kula talin lahayd? soo qor, khayr allah ku siiyo. maxaa dhihi lahayd? samey. nimanka soomaalidana maxaa kula talin lahayd? nimanka soomaalida laga cabaaday waa waxaa la dhihi jiray badda hal malaaya uriyaa la dhihi jiray ama qurmiye, soo maahan. waxaa laga yaaba niman saas oo kale inay nagu jiraan, laakiin niman wanaagsan way jiraan. kulli nimanka badan niman ma wada xuma, say dumarka u wada xumeynay raggan u wada xumeen. marka ninkan wuxuu sameeyey dabcan dhinaca oo xoolaha dulmi waaye. haddii laisla leeyahay oo lacagta laisla aruuriyey oo iidana waxay ku leedahay asina wuxuu ku leeyahay, dabcan ma banaana inuu ku tasarufo oo business haddii la yiri lasoo baxo. hadduu wuxuu is gooni u leeyahay 100% dhandarkiis waaye, laakiin hadduusan gooni u lahayn waxaa fiican lacagtaas oo kale dulmi waa. almuhim laba nimanka soomaalidana maxaa kula talin lahayd? maamadaas ama gabadhaas soomaalidana maxaa kula talin lahayd? soo qor talooyinka. khayr allah ku siiyo. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiikum. ilaahi subxana wa taala idin wada xifdiyo. waynu usbuuc soo socda insha allah tacaala, iyo taladan sheegi doono insha allah. taladan la taliyey aan sheegi doono hadduu ilaah yiraahdo, maadaama waqtiga hadda dhaamo almost 9 daqiiqa la marwaya, ama mid kale cusub aan idiin sheegi doono insha allah. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.